dowladda federaalka Soomaaliya waxay saldhig u tahay dhageysiga codka shacabka, ixtiraamka doorashada dadka deegaanka, iyo tixgelinta rabitaanka siyaasadeed ee ku aadan ayaka tashiga. Tani waa sheekada dhismaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya. geedi socod ka dhashay rabitaan bulsho, hoggaan qaran, iyo hirgelin dhab ah ee federaalka. wejiga koowaad ee rabitaanka shacabka ah 5tii bishii Janaayo sanadkii 2023 si looga baxo humanti la'aanta iyo matalaad la'aanta siyaasadeed isla markaasina loo miro dhaliyo doonista dadka ayaa waxaa la dhisay guddi ayaka tashiga SSC Khaatumo oo ka kooban 33 xubnood. tallaabadani waxay ahayd fariin siyaasadeed oo cad kuna muujisay jihada iyo go'aanka shacabka deegaanka. ilaahay maadiyaan ka gaadhay horta 33 nin waa isdhaafsadeen oo dhaar bay ismariyeen inaan dad maanta la khayaamayn dadka maamula la kala raacin noocu doonaha ahaado. 6dii bishii Febraayo sanadkii 2023 isimada dhaqanka ayaa soo saaray bayaanka Laasacaan oo ah go'aan rasmi ah oo sharciyeeyay hannaankaasi. waxaa magaalada Laasacaan oo 28 bishii koowaad 2023 oo soconaya ilaa maanta oo bishu 6 tahay shir weyne ay aayahooda kaga tashanayaan isugu yimid dhammaan isimada, uqaasha, culimada, aqoon-yahanka, haweenka, dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wadahadal dheer iyo falanqayn qoto dheer ka bacdi waxaan caddaynaynaa deegaanada SSC Khaatumo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin dadweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. halka 28 bishii Febraayo 2023 dowladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in la tixgeliyo rabitaanka shacabka, isla markaasina ay taageertay bayaanka isimada. sidaasi ayuu ku hanaqaaday maamulka ku-meelgaarka ah oo leh ahdi 2 sano ah kana shaqeeyey dejinta aasaaska dowladnimo. marxaladdaasi markii ay muddaxileedkii dhammaysatay waxaa timid baahida wejiga labaad ee geedi socodka dhammaystirka dowlad goboleedka ayna dhismihiisa hoggaaminayso dowladda federaalka Soomaaliya. ujeedka marxaladdan ayaa ahaa in la dhammaystiro dowlad goboleed xubin ka noqda dowladda federaalka rasmi ah, leh dastuur, sharciyad qaran, habraacad iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay kuna dhisan wadar ogol. iyadoo laga duulayo hagidda madaxweynaha xukuumadda federaalka ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay guda gashay geedi socodka lagu ballaarinayo awoodda federaalka laguna soo kordhinayo dowlad goboleed cusub. waana tallaabo muujinaysa in federaalku uusan ahayn hal ku dhig balse uu yahay xaqiiqo shaqaynaysa. 12 bishii Abriil 2025 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa booqasho taariikhi ah ku tegey magaalada Laasacaan. safarkii ugu horreeyay ee ra'iisul wasaare Soomaaliyeed halkaasi ku tago. booqashadan waxay astaan u ahayd mas'uuliyadda dowladda federaalka ee ilaalinta rabitaanka shacabka iyo ka go'naanshaha midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. 2 maalmood kadib dowladdu waxay soo saartay warmurtiyeed rasmi ah oo lagu shaaciyey in dowladda federaalka ay hoggaaminayso dhammaystirka maamulka, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta loo xilsaaray hannaankaasi. 29 bishii Juun 2025 wasaaradda arrimaha gudaha waxay go'aamisay goobta iyo taariikhda shirweynaha dhammaystirka, dhistayna guddi farsamo, iyadoo 10 bishii Luulyo 2025 uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh uu si rasmi ah u gaaray magaalada Laasacaan. waxaana safarka iyo guud ahaan howlaha maamul dhiska Waqooyi Bari ku weeliyey mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Senator Cabdulaahi Timacade iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane Cabdulaahi Bidhaan Warsame. shacabka SSC Khaatumo oo aan u rajaynayno guul iyo wanaag oo dhan aanuna u nibi dhammaystirka maamulka dowlad goboleedka Khaatumo. sidaan sheegnaba wadadhaxaadka geedi socodkan waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh
oo muddo 2 bilooda deganaa magaalada Laascaanood qorshayaashiisa aragtidiisa hoggaamineed wadatashyadiisa joogtada ah ee uu la yeeshay mas'uuliyiinta deegaanka isimada hoggaanka bulshada iyo qaybaha kala duwan ee deegaankaasi iyo doorkiisii soo dhoweynta saamilayda waxa ay ka dhigeen hannaankan mid ay hoggaaminayso Soomaaliya loo dhan yahay isla markaana meel dhalay intii u dhaxaysay Luulyo ilaa iyo Agoosto 2025 waxaa la dhammaystiray qaab dhismeedka dawlad goboleedka iyadoo sooyaalka dhismaha dawlad goboleedka waqooyi bari ku bilowday furmidda shirka shirweynaha ergada 21 bishii Luulyo 2025 waxaana ka qayb galay 432 ergo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in ergadii ay halkaa fadhido ka tali lahayd aaya ka taliska iyo dhammaystirka maamulka SSC oo aynu horay u sheegnay ujeedooyinkiisa iyo danta aynu ka leenahay waxaa ilaahay mahadiisa in maanta shirguddoonka inoo dhisan yahay guddigii farsamadu inoo dhisan yahay ergadii inoo joogto wixii kalena inoo soo dhammaystirmayaan tallaabadii xigtay waa 30 bishii Luulyo 2025 oo ergo gaaraysa 417 ay si rasmi ah u ansixiyeen dastuurka dawlad goboleedka waqooyi bari waxaan bogaadinayaa guddigii dastuurka oo shaqadan qiimaha badan soo qabtay oo runtii aan aad ugu bogay lifaaqyada ay ku soo dareen iyadoo marka horeba hay'adaha sharciga ahi ay isdabrayeen oo ay adkeeyeen oo aan arkay dastuurka 17 bishii Agoosto 2025 waxaa lagu dhawaaqay 83 xildhibaan oo noqday golaha xildhibaanada koowaad ee waqooyi bari Soomaaliya caawa ay taariikhdu tahay 17 bisha Agoosto 2025 guddiga hubinta iyo ansixinta golaha wakiilada dawlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya ujeedo ku dhawaaqista rasmiga ah ee xubnaha la ansixiyay golaha wakiilada dawlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya 2025-2030 xildhibaanada baarlamaanka ayaa 23 bishii Agoosto 2025 iska doortay hoggaan iyo guddoonka baarlamaanka kuwaasi oo kala ah Dr. Aadan Cabdulaahi Aw Xasan guddoomiyaha golaha wakiilada ku-xigeenka koowaad Marwo Amran Axmed Xasan iyo ku-xigeenka labaad mudane Cabdirasaaq Jaamac Warsame dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee golaha ku sugan iyo kuwa ka maqanba kuwii ii codeeyey iyo kuwii aan ii codaynba aniga oo u caddaynaya in aan dhammaantood u ahay guddoomiye si siman ugu adeegi doono insha Allah annaga ka wasaarad ahaan iyo ka dawlad federaal ahaan shalay markii aad fadhiisateen fadhigiina koowaad oo guddoomiyaha kulmeergaalka la qabtay ayaa shaqadayadii dhammaatay wixii intaa ka dambeeya waa dul joogtayn weyn inaan idinla ogaano idinla xaqiijinno munaasabadaha idinkala qayb galno inaga iyaga ka niraahno laakiin shaqadii idinkeeda agtaada halka ugu dambayntii 30 bishii Agoosto 2025 loo doortay madaxweynaha dawlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya mudane Cabduqaadir Axmed Aw Cali iyo ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa shirguddoonka iyo mudanayaasha sharafta badan ee kalsoonida ii siiyey inaan qayb ka noqdo hoggaanka dawlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya oo maanta ii doortay inaan noqdo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee dawlad goboleedka waqooyi bari uu yeesho runtii aniga waxaa ii tahay farxad gaar ah waxaa guulaystay shacabka waqooyi bari oo dhan waxaa guulaystay midnimadii Soomaaliya waxaa guulaystay in reer waqooyi bari ay ka baxaan dhulkooda murankii lagu muransanaa waxaan bogaadinayaa dhammaan shacabka waqooyi bari waxaan u mahadnaqayaa madaxda dawladda federaalka ah oo ugu horreeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre kaalinkii wax ku oolka ahaa ee ay kaga jireen ama ka qaateen dawlad dhiskeenna iyo in maanta reer waqooyi bari ay ku naaloodaan maamul goboleed ay leeyihiin
reer waqooyi bari waxaan leeyahay dad gobaynu nahay abaalkaa laynoo galay 1000 sanana waa haynana waa celinna haddii ilaahay ka dhigo waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha saaxiibkay cali yuusuf cali xoosh oo dhinacayga taagan laga bilaabo 6dii bishii Juulaay iyo shalay oo ahayd 30kii bishii August inta u dhaxaysay 2 bilood oo Shambri dhiman waxa u suurta gashay guddiga federaalka ee dhamaystirka dawlad goboleedka waqooyi bari in ay qabato shirkii ergooyinka oo ka dhashay wufuudii 1200 ahayd ee isugu timid magaalada Laascaano ka kala yimid gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ama Buuhoodle iska soo xulay 432 erge ah oo ansixiyay dastuurka hadda hirgalay ee ay yeelatay dawlad goboleedka waqooyi bari ka bacdi anagoo sameynay guddiyo kala duwan oo nala shaqeynayay ehelna u ahaa aqoonna u lahaa xaaladda wufuudda isu timid iyo ergooyinka waxaan ku guuleysanay in dawlad goboleedka cusub loo bixiyo magac loo sameeyo calan lagu heshiyo caasimadda koowaad iyo talabaad isla markaana go'aan laga gaadho xubnaha ka mid noqonaya golaha wakiilada oo noqday 83 xubnood halkaas ayay ka bilaabatay geedi socodkii doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada oo ay doorteen gudoomiyahoodii iyo labadii gudoomiye ku xigeen ka bacdina suurageliyay idam ilaahay in loo tartamo si hufan ay u qabsoonto doorashadii madaxweynaha oo ay u tartameen 5 madaxweyne iyo 5 madaxweyne ku xigeen ka bacdina uu ku soo baxay madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye iyo madaxweyne ku xigeen Cabdirashiid Jibriil ugu dambeyntii January 17 2026 ayaa hoggaanka dawlad goboleedka waqooyi bari lagu caleema saaray magaalada madaxda maamulkaasi ee Laascaano iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Cali Yuusuf Cali Xoosh wasiiro xildhibaano labada heer ah madaxweynaha Galmudug hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah safiirada caalamka waqooyi bari maanta waa tusaalaha nool ee muujinaya in federaalka Soomaaliya ay tahay hannaan suurtagal ah markay iswaafaqaan rabitaanka shacabka iyo ra'yiga hannaanka qaran rabitaankii shacabka wuxuu isku beddelay hay'ado dawladeed oo dhisan dastuuri ah isla markaasina leh sharciyad buuxda waxaa doorka weyn ku leh waqooyi bari dhismaheeda Cali Xoosh oo la ahayd in la soo qaado waxaan hambaliyo u dirayaa madaxda iyo shacabka waqooyi bari iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed maanta waa maalin taariikhi ah munaasabaddaanina waxay qayb ka tahay geedi socodkii dawlad dhiska iyo nabad dhiska dalkeen dadka Soomaaliyeed waa la soo yahay maanta priority number 1 waxa inoo difaaca dalka midnimadiisa ragga odayaasha ee boqorada ee ugaasiyada ee halkan fadhiya galaadada ee la hadlayo state kale oo dhiso oo Soomaali liqdo oo aqbasho waa deyn midnimo waqooyi bari waa maamul goboleed xubin ka ah dawladda federaalka oo ka dhisan waqooyiga dalka waana tiirka midnimada ilaalinta qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan ka cadaynayaa in waqooyi bari ay tahay dawlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa kale oo aan rabaa inaan ayadana halkan aan ka cadeeyo waqooyi bari in ay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dawlad goboleedyada kale ee dalka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waqooyi bari waxay astaan u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta madax bannaanideeda bulshadii dadnimo fiican